maadaama ay Konami ay space-ka ku dartay iyo space requirement iyo RAM-ka ku dartay dhalinyarada barkood maxay ku qasbanaanayaan intay Konami iska dhaafaan. maxaan decide gareey intaan gameka loo similar camal Konami organize hagaajiye si waqtigiina isqaatay Konami haddii space-ka ku dartay maxaan ogahay dhalinyaro badan intii ay durcadle ku soo dhacayeen oo ay geerinooyinayeen waxay dhaaxay sobiyaan so maanta kana wax walba ay socdaan projectan wada project inshallah I hope it will be successful idinka dartiin aan soo binahay game idin markaan soo saaro inshallah within few weeks ay qaadan markaan soo saaro programming everything ay rabtaa so I'm not good at programming but I'm trying my best inta game kida nin soo hagaaji game tii markay soo hagaagtaan inshallah I hope intaas meel dheer gaarsiin doontiin oo start badan siin doontiin waan enjoy garin doontiin waxyaalo markii game tii soo baxdo waxyaalo ay soo maray lazim waa but I have my lappy and I will correct them so guys war farxadda warkaasina dhigi karaa waa maxay the first Somali boy oo game hagaajiyo noqona so I will try my best intas as Konami as xasuusin ama as bilowdinbo oo game tani soo hagaajinayni macaanan doon so before ana game ka waxaan project tan intusin maxaan ka codsanaa intas channelka subscribe saartid muuqaalkaas like saartid hadday gameka as waxyaala asrab inta lagu soo daro asrabtidna waayo comment ku soo qor sifaan ogaada intaan baash aan dhameenin intaan project aan dhameen sifaan ogaada opinion kiina sida ay tahay iyo sida asrabtin day game tahay hata so let's go guys This is how the project is continuing. Project waa socotaa waa weli dhexda ay maraysaa. Since I'm not good at programming kuma fiicni so maxaan masaacadan tirsaday qafaan raadsanayaa oo programming ay tuso then the game will be okay inshallah ta'ala. So guys support me in this process inshallah. So guys waa kana project waa socotaa waatana waa wax ka dhiman malaha hadda the code waa haystaa the coding-ka waxa dhiman oo sidii isku xariirinahay oo gamekii dhulka iyo codka sidii hagaajin lahaa dhiman waa hadda I think few days ama few weeks ay qaadan intaan ay fully oo diyaar ay noqoto so game cajiib ah soo saar raba inay caadi yihiin oo soo maskaxda isku degsan doontiin oo space badan waxaan kiribi doon oo mobile walba waa qaadi doontaa oo RAM ku yareena GB ga yareena wax kula yareena so sifaas enjoy graysin oo soo aswaqti qaatiin guys so wakana wajudin everything screen waxaan kula socdaan so guys everything was on the track wa so guys la socdo wanaagsan guys so guys waa hadda sidaad soo aragteen project sidaan u wada inshallah I hope it will be successful intay qeyr noqotaa rajayna xaway marka game-teed markay dhameeyay project-teeda game kale aan raayo intaan hagaajiyo so game-keeda codsiina waa soo qori kartaa comment ku soo qori and game-teeda aad rabtiin aan soo hagaajina oo wax walba ay u qaato aan soo hagaajina so game kale aad rabtiin intaan ku soo hagaajiyo so sheeg so osrab inta lagu soo hagaajiyo ku soo hagaajina and comment ku soo qoro guys hadda waa shaqo ii taashay so video-giina si dheereeya ma rabo so guys inshallah maxaan balanay game-kaas iyo baashaalkiina saasoo nabadgelyo bye